Soomaali weligeed lagama faa'iidin dalkii imaaraadaha ee ku haynay warina daaya warina dhiga maanta isagay ka shidan tahay amiirka haysta magaalada Dubai isla markaana ah madaxweyne ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka difaaca ama gaashaandhigga dalka imaaraadka Mohammed bin Rashid Al Maktoum oo nin haymaarsiiyay ah ninka Dubayda aragteen ay u shidan tahay ba maanta xaaskiisa laba cagood kaga carabtay oo maanta waxa weeye London kaga dhuumanaysa oo saa u baadi goobaysa muddo laha war Soomaali ma taqaanid war Soomaali carabkeedu waa kulul yahay war cidii carabka ku badaysa war waa burbudha cidii marsaa tiraahda ruush oo midowgii Sofiyeet oo dunida u shidan tahay oo Mareykan xataa waxa weeye uu gacmaha kaga gabado oo cidiba u taaglaadahay ba Soomaali Ethiopia ka raacay maalinka Quraan saanidi waa ogeedeen 10 dal buu kala 15 dal buu kala daatay qalalalah saas uu baabay maanta imaaraad halkii buu ku socdaa meel xaajiyadahoodii dumarkoodii ka dhunteen maxaa ku haray waliba koob iyo 30 milyan oo dollar bay boorso kaga ridatay laba ciyaal oo dhashin hore bay uga daftay markii hore Jarmal bay timi hadda Ingiriiska ku sugantay arintaas aan ka hadlayaa waa ninkii Shiino culayha arfiidii ugu haduu soo gaaray hadal nacas waalidi si sheer garay nacala shiidan ku yaal channelkayga subscribe garay like taana lacag maaha iyo subscribe iyo share wuxuu bay iskaga taabo iskaga hoobi commentiga soo daa aan ku bilaabo gabar lagu magacaabo amiirada ahayd waxa lagu magacaabaa Haya bint al-Hussein gabadha waxa dhalay boqorkii hore ee wadanka Urdun baa dhalay waxay walaalayihiin xagga isku aaba ah boqorka hadda haysta wadanka Urdun boqor Abdallah waa reer Al Hashimi waa duriyadii Quraysh weeye waa carabta la hubo inay Quraysh ku aftirsadaan reerkaas hadda waxay maxaan ku raahdaa xukumaan wadanka Urdun gabadhaas qoyskaasi ka soo jeeda xagga Ingiriiskana cad baa u galay wadanka Ingiriiska wax ku soo baratay gabadhaas iyadoo waxa weeye saa u calan walaynaysa oo fardafuulka baratay oo waxa ku yiri ciyaaraha fardafuulka markasta saa u qaada baa wiil uu dhalay odayga Dubai haysta amiirka oo guursan doona wiil uu dhalay baa gabadha TV-ga ka arkay carabtu dumarka habaar bay ku qabaan tee arkaan inuu maartay lugteeda la rogrooy karo waa jecel yihiin in iska guursadaan wiilkii baa wuxuu yiri aabo gabadhaas aan jeclaaday waa wada hadalnay aabo iidoon waayahay wiil maado maxaa ku raahday reer Al Maktuuba oo Dubai oo adduunyadooda u soo dalxiis tagto waxa weey Ilaahay ku siiyay ba gabar waay kara ana doonayo aabe odaygii baa soo orday reerkii uu ardaa dhigay gabadhii buu arkay odaygii carabi dhaqan ma leh gabadhii markuu arkay mise gabadhu waxa weey waa biyaha ay cabayso xataa halkeeda markay marayaan cunaheeda waa arkaysa waa bahal laba mitira oo intee la eg tahay waxa weey fardafuulna baratayo waxa weey gabigeeduba kaalay saa loo shubay odaygii wuxuu yiri gabadha baa anaaba doonayayba war wiilkaaga gabadha yiri waa raba may wiilku aanu gabadha ii doonay odaygii halkiibu gabadhii meher loogu dhuftay wiilkiisiibu ka boobay gabadhii si kale uma garataane waa Soomaalida xataa taariikhda marmar waa ka dhacda carabta laakiin noocyadaas oo ku badan yihiin Soomaali kuma badno gabadhii odaygii sidii ku guursaday odaygu 2004 buu guursaday waa ninka Dubai Burjul Arab iyo Burjul Khaliija iyo Jumeera iyo ninka Dubai basa magaalada ka dhigay weey awal saxare ahayd odaygaas lacagta uu leeyahay waxa lagu qiyaasaa 30 bilyan oo dollar lacagta kaashka oo bankiyada u taala 30 bilyan baa lagu qiyaasaa dhowr xaas buu soo guursaday 25 ciyaal oo wiilal iyo gabdha leh buu maxaa ku isugu jira uu dhalay odaygaas gabadha reer Al Hashim ka soo jeeda oo Quraysh ka soo jeeda waa la guuray wuxuu la degay Dubai maxaa ku qaraar quraacda waxa la yiraahdaa helicopter baa u geysa weelka markii maxaa ku raahday ka dhameysana waxa weeye Boeing baa ka qaada baa la yiri waxba ku jirtay gaari iyo dadka gaagaabay baa gawaar ku safra gabadhaas noloshaas ku jirtay laba ciyaal ninka u dhashay amiirka ah iyaduna amiirad bay noqotay markii hore tan reer amiira ka soo jeeday madaxda iyada ka guurstaa la yiri labadii qadayn kara iyaga isla qaataan maqal jiray waxa weeye gabadhu markii hore tan reerkaas ka soo jeeday marakana reerkana u timiyo shidaal Ilaahay siiyo dad Dubai u shidantahay Dubai imaaraadka lagu sheegaya waa Abu Dhabi iyo Dubaina waa tiknoolajiyadii iyo ganacsiga iyo horumarkii iyo xadaaradii bay haysataa odaygaas wax kala joogtay diyaaradda imaaraat la yiraahdo oo dunida number 1 ka isaga leh diyaaradda meel kale waxa ka doonayna Soomaaliya diyaaradda waa nin kale daarta dunida ugu dheer Burjul Arab Burj Khalifa la dhaho waa nin kale weey waa nin Ilaahay maal siiyay waa waxa waa lagu imtixaamaya si kale uma garataan ninka laba ciyaal u dhashay
gabar waxaa lagu magacaabaa Jaliila gabadha curadda ah wiilkana waxaa lagu magacaabaa Said halkaas ku noolaayeen nolosha raaxada leh ku jirtay barwaaqada qayl kama yeerin waa isku dhaqnaayeen gabadhaas dunidu waa u shidnayd wax ku dhacay la garan mayo gabar u dhalay oo Jaliila lagu magacaabo islaantu dhashay haya dhashay ba hadda koor laba jeer isku dayday inay baxsato labada jeer ba waa la soo celiyay maalin dhow taxta waxa way idaacaduhu soo bandhigay islaan ka ahaan jirtay madaxweyne wadanka Ireland ba u tagto gabadha xaaladeeda soo eegtay adduunyada oo dhan ba inta la isla maray gabadhii waa la dilay miyaa xaaladeeda lama hayo buu soo bandhigay oo yiri war gabadhii waa tan islaantaas soo salaanto isla soo sawirtay reer barwaaqo ku jira ba guri barwaaqo reer ku jira waxa lagu war helay muddo hadda dhowr cisho ka hor gabadhii inay ninka ka soo baxsatay haya inay ka soo baxsatay labadeeda ciyaar ahaa in hore u soo qaatay 31 milyan ma aha Soomaali dollarna inay boorso kaga soo reetay riyaalna ma dollar ee shidad kaga soo reetay gabadhaasi Jarmal bay timi Jarmalku nabadgelyo siiyay waa la ilaalinayay macna ilaala gaar ah loo sameeyay wixii tir waa soo baxsaday nacala shidaan ku yaan dib la ila cararina ilaaliya Jarmalku waa hayay dhowr cisho hayeen anu Jarmalkan ku noolaa hudheel qaali hudheel kasto 5 star waa hortagay saasaan uga baafi waxaan sir gabadha bal soo wareyso imaaraad khayr ma qabo soo wareyso hadee maslaxaad iyo shaayna halkaas waxa way faqri bax kugu dhow iyada iyo odageeda dhex galo wax tirada war ya xaaji war dhaqan Soomaaliyeed baan leenahay gabadha waxa waa reeraha kala yaaca Soomaalidu inta badan ya iblis baa dadka kala diray inay dib isku celisay jeceshahay wax hawsha aan oday Soomaaliyeed baan aan galo ya هاجر بيدو حال ده سؤال ده مركي قرت نقصه ورمحك آخر ده وراه محارته ومدع مياته مدع عليك باتي لعكت روك لقاته واحد الكوا هاجر بيداكشوا يا سؤال ودوين وجود سدون تعالي وفخر وحكي عن ساعة هاوش أنا قال عن تبعي إلى هاي ما قدرين ودل بدن وقالي وهرش تاجي ما قاعد وكبه في مركز دم واحد سري وريال لما إنه العكوز سيو وقبل الدهن السوين عنك وافضل ده وريكهر بهاير واحد كور هلاك بدي شلي إنجليز بيكندكتي حافظ قالية guri koob iyo 80 milyan oo pound waa 100 milyan oo dollar bay ku jirtaa baa oo Elizabeth ba guriga ka soo horjeedaa xaajada islaanta Ingiriiska haysata waa ka soo horjeedkeeda baa waa ka soo horjeedkeeda waa naag ladan weey laba qoys reer boqorna u dhaxday yaa kuwa reer Al Hashimina maxaa ku raahdaa ka dhalatay weey gabadhii halkaas ku noosha sheekhi ma oran naga warqadeeda kaba daba dirinay ay iyo hanjabaad iyo maxaa ku raahdaayay iyo ugu soo qoray Instagram-ka ya ha waxa tahay kaadibad baa tahay waa ay khiyaantay way iga carartay waa u soo hanjabay gabadhii hadda waxay sheegtay inay maxaa ku raahdaa nafsadeeda u baqayso Ingiriiska hadda ilaalinaya waxay isu diyaarinaysaa maxkamadda uliya maxkamadda sare ee Ingiriiska inay maxaa ku raahdaayay ay ka dalbato ninka in laga soo furo bay isu diyaarinaysaa 30 milyan hadda Soomaali lacag badan bay u tahay laakiin si uu haynayso inkastoo reer boqor ay ka soo jeedo garan mayo gabar waxa u baratay oo helicopter cuntada loogu keeno oo weelka maxaa ku raay wax ku cunto laga sii qaado u baratay 30 milyan bil hayn mayso wala ina gaajato dib ugu cartaa ka baqaya dib ugu noqoto gabadha marka halkaas hadda ku sugan tahay odaygiina waa baadi goobaya warbaahintu waxay la xiriirtay safaaradda imaaraad ku leeyahay dalka Ingiriiska magaalada London safaaraddu arinta inay ka hadasho waa diiday waxay tiri anaga arrimahaas arrimo daaqiliya shu'uunul family weeye ma gallo bay tiri waxa la rajeenaya imaaraadka iyo Ingiriiska oo cilaaqaad fiicni ka dhaxayo inay ka dhaxtafan doonto Jarmal waa fariid weeye waa aqli badan imaaraadku waa ilaahay xoolo siiyay shidaal buu siiyay wadanka ku kacaan Canada حتى مر بي ساعة أنت وقبتين بريد لك وقدفتين أنت كندا حوجا أسقو قبتين ديارضي وحياة من نوعاس وودن فرال وقبتويه قدر وقوة قدومية سومالي وقوة كل محاكرة شركة شنات كتوري مركا إلها وقوة مسبة ديدي إنجليز كإماراتكو دي حالة ضوء كان صح لكن إنجليزكو دواء وبا عديه يا إمارات ساعة بحرمة السيئة ساعة قلان قلب ذنبو كليه مركا واسكد عن كرا لكن أردن iyo Imaaraadka iyagana waa ka dhaxtafanaysaa sababtoo gabadhu boqorka Imaaraadka walaashi boqorka Urdun walaashi weey gabadhu waa reer Al Hashimi weey waa ina boqor Xuseen weey marka boqor Cabdalla waa ku dadaalaya hawsha inuu soo galo soo farageliyo marka laakiin isagu Imaaraad iskuma taagi karo waxa la yiri dad 500 oo ku lagu qiyaasay oo reer Urdun ba Imaaraadka ka shaqeeya oo lacagaha ay biilka ay dib u soo diraan waxa weey Urdun ay ku kala socotaa marka boqorku
imaaraadku waa dad dagaashasheedka yaqaan hadaa maris qabataan ya kacaysta wuu oranaya waxa wadankaga jooga boqorku haduu xanaaqo amiirkaas haduu xanaaqo kacaysta sidii Soomaali ku dhacday Soomaali ilaahay hadda fiisooyinka looma jididiyo Kenya maalinta dhooteys qabtay wuxuu ku dhacay arkaysi wuxuu yiri waxa Kenyatta wadanka jooga 24 saac ayga baxeen marka urdun hawsha ma gali karto waxay u badan tahay boqorku inuu arinta ka aamusi doono haduu cid canaanayna walaashi canaanayo oranayo kullaaba gurigaaga saasa loo badinaya laakiin ingiriiska xarig adag bay qabsatay ingiriisku gabadha cilmiyo khasaare kasta ha ugu sugnaado imaaraadka dagaal kasta hala galo waa isku dayay inuu la dagaalamo marka Soomaali laga faa'iido imaaraad waa la socotaan waa iska abhinay war inaga leexda war inaga jooga war ilaahay ka baqa war xumaantiina ma rabno war taayada doonina waa diideen Soomaali inay saa maxaa ku farageliyaan maamul goboleed lacagsi Soomaali kala rid wax kale tan ma imaaraad wuxuu niyeystay maalintaas Soomaali dawlad noqoto adigana maalintaas gaajo kugu horeysa intaas maartay aamineen laakiin waxaan leenahay war wixii ilaahay idin qoray ya waa heleysaan Soomaalina wixii alla u qoray waa helayaan iimaan darada iska daayay dadka horumaray baatiin meesha ay joogtaan 100 sano xataa anigu ma gaari karno si kasta horumar u gaarno ma gaari karno sababtoo dal 30 sano burbursana maanta xaaladiisu banka oo tahay ya wali aan si fiican caga isugu istaagin baatiin idinkuna dadka warshadaha nuclear-ka dhisanaya inkastoo gaalo idin dhisto cilmiga ay idin kulhayn lacagta aan idin ka guranayo dadka deex gacmeedyada maarta dibadda u diraya inkastoo Korea idin dhisto inay dirta idinku idin awood daalahayn dadka maxaa ku raadayay nabadgelyadooda ilaashada inkastoo Mareykan salliga badan ku leeyahay oo Iran ka hortaagan yahay waana dhaantaan marka waxaan idin leenahay Soomaali lagama faa'iido Ruush baa Ethiopia nooga hiiliyay isagoo Soviet la dhaho oo adduunka dalka ugu awood badan oo super power oo wadanku sida u eego ya sida u eego waa ogeedeen jeega wixii ku dhacay Hungary wixii ku dhacay shiinu damcaynu duhur xataa u diirto oo maxaan ku raadayay ilaahay ka badbaadiyo wadankaas baa nagu degdegay Ethiopia naga raacay hal mar baa Soomaali saa wada tiri ya meel xul ku baxa isku bax baan dhahnay iyagii baa ilaahay isku diray 15 dal bay u kala jabeen waa ka maanta Ukraine iyo Ruushku waxa weey safaarada kala qaatay Georgia iyo Ruushku dagaalamay maxaa wadamadii Baltic Latvia iyo Lithuania iyo maxaa ku raadayay iyo Ruushka ay ka dhex taagan tahay mid wax isugu jira aysan jirin waa la socotaan Armenia iyo Azerbaijan ay xabad isu sitaan Uzbekistan iyo Turkmenistan la kala ilaaliyo nabad ilaalintu ku kala dhex jirto waka maxaa ku raadayay Moldova iyo maxaa ku raadayay ay labada kala tahay waka Soomaali lagama faa'iido waa Sovietiga iyo 15 dalar ma soo weeraray oo Ethiopia dhabarka saaray saasaanu imaaraado dalba isku tiin 7 midoobe baatiin Soomaali maanta gabar bay ka baxsatay ya hadda joogi weydaan hadda saa idin dhahno 7 dalba oo midoobe ahaydeen 7 kale yaa noqonaysa naga joogaan idin leenahay wali anagu wanaagaan eegayna wanaag dad walaalahay ah Arbeed baatiin muslima waxba xumaantiin u tarimayso xumaantiin dhaqanka Soomaaliyeed ka mid tahay intaas aan idin leeyahay waa ninkii shiina culeeyaha fiidiyooga si share gareeya nacala shidaan ku yaal waa idin salaamay taniinta barnaamij kala mid ku kulmi doona waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh